aniga iyo walaalkay iga yar ayaan bannaanka u baxnay si aan aabe ula kulanno. Maanaan arkin gaariga xawaare sare ku socday ee naga dambeeyey. Aabe markuu arkay isla markiiba wuuna riixay si uu noo badbaadiyo, laakiin isagii gaariga ayaa ku dhacay. Waxaan daawanayay jirkiisa oo qabow noqonaya, laakiin ma aanan ogeyn waxaan sameeyo. Deriska ayaa caawiyey oo aabe guriga keenay. Hooyaday oo uur lahayd ayaa cabsi darteed isla goobta ku suuxday, dhiigna dhulka ayuu si tartiib ah uga soo muuqday. Deriska ayaa mar kale hooyo isbitaalka geeyey. Isla wakhtigaas ayeeyo ayaa guriga timid iyadoo hilib soo iibsatay. Waxay qorshaynaysay inay noo kariso, laakiin markii ay aragtay aabe, wadne xanuun ayaa ku dhacay. Isla markiiba dhulka ayay ku dhacday iyadoo miyir beeshay, wax yar kadibna way geeriyootay. Sidaas ayuu qoyskeenu ku burburay. Hooyo markay isbitaalka ka soo noqotay way waalatay. Waxaan jilba joogsaday qabuuraha ayeeyo iyo aabe hortooda, waxaanan ku dhaartay inaan qoyska taageero. Laga bilaabo maalintaas, culayskii qoyska aniga ayaa qaaday. Laakiin ma aanan filayn in walaalkay yar habeenkaas qandho daran qabto. Hooyaduna waxay mar walba u ooyeysay ilmaha caloosha ku jiray. Waxaan rabay inaan cunto u kariyo marka hore, laakiin waxaan ogaaday in cuntadii guriga taalay dhammaatay. Keligay ma daryeeli karin hooyo iyo walaalkay. Haddii xaaladdan ay sii socoto, dhammaanteen gaajo ayaan u dhiman lahayn. Sidaas darteed waxaan go'aansaday inaan walaalkay siiyo qoys taajir ah. Waxaan hortiisa isku tuuray gaari qaali ah oo xawaare ku socday. Milkiilihii gaariga wuxuu mooday inaan lacag ku baadayo. Ilbiriqsigii xigay ayaan jilba joogsaday, waxaanan u sharxay xaaladda qoyskeena. Waxaan ka baryay inay korsadaan walaalkay. Si lama filaan ah way aqbaleen. Inkastoo ay igu adkayd inaan ka tago walaalkay, mustaqbalkiisa darteed waan ku qasbanaa. Waxaan bilaabay inaan lacag kaydsado, maalin kasta wax yar ayaan dhigtaa, anigoo rajaynaya inaan mar uun soo ceshado walaalkay. Maalin kasta 3 shaqo ayaan qaban jiray, anigoo sidoo kale daweynayay xanuunka hooyo. Sannado badan ayaa dhaafay, waan weynaaday, laakiin weligay kama aanan harin raadinta walaalkay. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaan aaday guri taajir ah si aan shaqo xanaano u codsado. Maamulihii guriga wuxuu igu amray inaan daryeelo wiilka yar ee guriga. Markii aan qolkiisa galay oo aan hurdada ka kiciyey, isla markiiba waan aqoonsaday, wuxuu ahaa walaalkay aan sannado badan raadinayay. Laakiin isagu ima uusan aqoonsan, wuxuuna mooday inaan si ula kac ah uga tegay markii uu yaraa. Wuxuu iga saaray qolka. Sharaxaadii maamulaha guriga kadib ayaan ogaaday in tan iyo markii aan kala tagnay uusan mar dambe ku dhiiran inuu qofna aamino.